الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا الجورنال كيني اسبوع الله إن شاء الله. وحين قادرينا مانسا 10 عنوان كيسو يهي useful sentences إن شاء الله وحين كبلنا قيبتا جملتها مركزي مهمة. useful يعني مهمة sentences نوحوي جملة مركز دي لسكو دروا حوي جملة مركزي مهمة useful sentences. جملة نوع رئيسو waxaa number 1 waxay noo qoran waxa loo yaqaano please how long have you been away from the camel because you seem to me a camel boy waxaa loola jeedaa fadlan ilaa intee ayaad ka maqnayd geela sababtoo ah waxaad ila muuqataa wiil geel jiray fadlan ilaa intee ayaad ka maqnayd geela sababtoo ah waxaad ila muuqataa wiil geel jiray Please, Falan, how long have you been away? Have you been away from the camel? At Kamagred Gela, because also you seem to me wahadilla ektahay, and wahadilla mogota, a camel boy will markasi gil chire ah. Waqad Kenikuat, Amajinuden Ohoreso. Please, Falan, how long have you been away from the camel? Elaine said, but Kamagnet Gela, because also you seem to me, a camel boy will markasi gil chirea. Jimnudeni Lavats, okay, the problem is not to you, the problem is not to you, but like I say, it is me, wa aniga, gave you kusi a chance and a forsat. The problem is not to you adiga maaha but like I say it is me wa aniga give you markaasi ku siiyay a chance fursad to talk to me si aad igula hadasho aniga The problem is not to you adiga maaha but like I say it is me wa aniga give you ku siiyay a chance fursad to talk to me aad igula hadasho jumlada labaad marka Soomaaliyeed waxaad deysaa dhibaatada wadiga maaha laakiin se waa aniga oo ku siiyay fursad aad igula hadasho wayna ku gudbaynaa jumladaasi number 3 aynu gudbaynaa jumladeena saddexaad waxay noo qoran Okay, don't you know miyadan garanaynin that I am in anigu waanahay the front runner horjoogaha of Modern Institute ee Mahadka Modern Don't you know miyadan garanaynin that I am in anigu waanahay the front runner horjoogaha okay of Modern Institute ee Mahadka Modern Number 4 jumladeena afraad waxa weeye If you abuse me again, haddii aad cayso anigu mar kale. If you abuse me again, haddii aad cayso mar kale. If you abuse me again, haddii aad cayso mar kale. You will take your molars. waxaad ku qaadan doontaa goysahaaga. You will take your molars. waxaad ku qaadan doontaa goysahaagii with your hands gacmahaaga. يعني haddii aad cayso anigu mar kale waxaad goysahaagii aad ku qaadan doontaa gacmahaaga. haddii aad cayso anigu mar kale waxaad goysahaagii aad ku qaadan doontaa gacmahaaga. If you abuse me again, haddii aad cayso anigu mar kale, you will take your hands. waxaad ku qaadan doontaa gacmaha goysahaagii. You will take your molars. waxaad goysahaagii aad ku qaadan doontaa with your hands, yani gacmahaagii. wayna ka soconaynaa number 5 jumladeena shanaad waxa weeye waxay noo qoran you are the cow of the class adigu waxaad tahay saacada fasalka okay saacada fasalka ayaa tahay you are adigu waxaad tahay the cow of the class saacada fasalka joogto ayaa tahay adiga you are adigu waxaad tahay the cow of the class saacada fasalka ayaa tahay soo sidaa darteed before I make you range intaanan ku lisin sit down fadhiiso waxaa iska kaftan weye You are the cow of the class. waxaad tahay saacada fasalka ayaa tahay soo sidaa darteed before I make you range intaanan yani aanan ku lisin before I make you range intaanan ku lisin sit down fadhiiso okay jumlada waxa weeye shanaad waxa weeye markaad Soomaaliyeynayso okay adigu waxaad tahay saacada fasalka sidaas darteed intaanan ku lisin fadhiiso number 6 Get rid of my avarice, otherwise I will milk you as a cow. Get rid of my avarice, يعني أرميه كبح يعني. Okay, أرميه كبح. Okay, otherwise hadii kale I will milk you. waxaan ku lisi doonaa as a cow. sida saxda oo kale aan ku lisi doonaa yani. أرميه كبح hadii kale waxaan ku lisi doonaa sida saxda oo kale aan ku lisi doonaa. Okay.
okay waxaan aanay get rid of my affairs arrimahayga ka bax otherwise hadii kale I will milk you as a cow waxaan ku lisi doonaa sida saxda oo kale number 7 okay numberka 7 jumladeeni 7 waxa weeye iyaduna actually xaqiiqdii mar run ahaantii you are digging your grave waxaad qodanaysaa meeshaas your aad ka dhiganaysaa actually xaqiiqdii mar run ahaantii you are digging your grave waxaad qodanaysaa qabrigaaga actually xaqiiqdii mar run ahaantii you are digging your grave waxaad qodanaysaa qabrigaaga ka soco 8 number 8 stop teasing at me please iga jooji taantaansiga fadlan stop teasing at me please iga jooji taantaansiga fadlan stop teasing at me please iga jooji taantaansiga fadlan number 9 don't be gassed yani ha noqonin marti don't be gassed ha noqonin marti okay come with your power yani awoodaada la imaaw come with your power يعني أبودادا الإماو هنقول المرتي إيه أبودادا الإماو don't be gassed هنقول المرتي come with your power أبودادا الإماو alright هنقول good بينا number 10 okay please فلان don't come against me هيجهر إيمانين okay please فلان don't come against to me هيجهر إيمانين أما هيجسور جسنا أنيقو if not أديكله I shall scatter you waxaan markaas I shall scatter you waxaan ka daadin doonaa I shall scatter you waxaan markaas aan ka daadin doonaa okay the teeth yani ilkaha the teeth ilkaha please falan don't come against to me hayga soo horjeedsan ama hayga hor imaanin okay if not hadii kale I shall scatter you the teeth ilkaha ayaan ka daadin doonaa yani okay 11 code 1 okay who are you relying on please yaad isku halaynaysaa fadlan who are you relying on please yaad isku halaynaysaa fadlan who are you relying on please yaad isku halaynaysaa fadlan who are you relying on please yaad isku halaynaysaa fadlan waxaynu ka gudbaynaa qaybta ku xigto short sentences يعني جملة مركزي جاجابن short sentences waxaa la yiraahdaa jumlado markaasi gaagaaban baa la yiraahdaa short sentences يعني waa jumlado markaasi gaagaaban short sentences oo jumladu wareyso spin around يعني kala wareeg يعني wareegso marka qofka dhayso spin around means waxa way kala wareeg ama wareegso spin around baa leenahay okay pack up sidoo kale waa isku mid weey pack up waxa weeye kala wareeg yani ama dib u jeeso yani ama dib u noqo pack up yani dib u gurisho sameey ama dib u laawo yani pack up dib u laawo sidoo kale number 3 waxa inoo qoran okay come forward hore u soo soco yani hore u soo soco come forward yani hore u soo soco come forward yani hore u soo soco number noo soo xiga number 4 waxa weeye watch your mouth yani taxadar okay watch your mouth waxa weeye taxadar ama waxaad dhehaysid ka fiirso yani waxaad dhehayso ka fiirso ama taxadar yani watch your mouth okay number 5 okay buzz off yani baxiga tag yani buzz off waxa weeye baxiga tag yani buzz off baxiga tag yani marka dhehayso kale buzz off baa isticmaali kartaa good number 6 I can't accept this ma aqbali karo tani 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 waan sii soconaynaa okay number ku xigo waxa weeye numberka loo yaqaano number 7 waxa noo qoran waxa loo yaqaano lend me your ears ya maahi dhagahaaga lend me your ears ya maahi dhagahaaga lend me your ears ya maahi dhagahaaga lend me your ears number 8 okay why are you ignoring me sababtee baad ii inkiraysaa why are you ignoring me sababtee baad ii inkiraysaa why are you ignoring me sababtee baad ii inkiraysaa ignoring means inkiritaan why are you ignoring me please ade qof haduu ka inatiro maxaa leedahay do you know me qof markaa dhahdo oh excuse me I can't guess your name I mean I didn't know haduu ku yiraahdo waxaa leedahay why are you ignoring me please sababtee baad ii inkiraysaa so waa kaasa number 9 waxa noo qoran you are playing with fire waxaad ku ciyaaraysaa dab yani you are playing with fire yani waxaad ku ciyaaraysaa dab ayaad ku ciyaaraysaa so all right aan sii socono number 10 is it serious yani run miya yani is it serious oh is it serious I have got it okay no okay $10 so is it serious aleeda yani so means is it serious man run miya waxaan yani is it serious damay ka tahay ma run miya yani is it serious yani run miya ka tahay ama run miya yani waan ka soconaynaa so waxaanu gudbaynaa waa other ways you can say take care yani qaababka kale ama wadooyin kale adigu aad u dhihi karto take care is ilaali ama taxadar take care means maxaa weeye taxadar yani
alright taxadar okay be careful yourself ka taxadar nafsadaada so take care qaababka kale ama wadooyin kale adigu aad u dhihi karto ayaynu markaas aynu sharxayna insha Allah haddii aad rabto marka inaad dhahdo take care bedelkii isticmaal lahayd take care waxaad isticmaalaysaa shantan jumladood ee soo socota isticmaalaysaa waxa ugu horeeya maxaa weeye be careful means taxadar way be careful waxa weeye taxadar way ilaali be careful please ilaali taxadar yani be careful gaari socdo wadada taagan tahay qof saaxiibtaa oo kale wadada duud taagan yahay oo gaari soo socdo maxaa leeyahay please look out iska jir ama be careful please be careful okay taxadar yani number 2 waxay noo qoran go easy on yourself yani si degan yani si degan u soco yani go easy on yourself si degan u soco haddaan isku soo koobno waxa dhan waxa loola jeedaa taxadar baa loola jeedaa marka go easy on yourself waxa weeye si degan oo an yara oo ayra yani u soco alright aan si socono number 3 waxay noo qoran stay out of the trouble dhibaatada ka fogow yani okay ama iska jir dhibaatada yani stay out of trouble means ka fogow dhibaatada ama iska ilaali dhibaatada yani stay out of trouble yani dhibaatada iska ilaali ama dhibaatada iska jir yani alright ama ka fogow dhibaatada number 4 okay waxaan leenahay put yourself first yani markuu nafsadaada mudnaanta si yani markuu horeyso mudnaanta si yani okay nafsadaada number 1 ka dhig yani oo ka taxadar nafsadaada yani put yourself first markuu horeyso nafsadaada ilaali yani ama mudnaanta si nafsadaada marka koowaad alright the last one waxa weeye be cautious okay be cautious yani waxa weeye taxadar loola jeeda be cautious yani taxadar way be cautious please taxadar fadlan be cautious okay qaybtan halkaas aan ugu gudbaynaa insha Allah waxaan ugu gudbaynaa marka qaybta ku xigto oo new English vocabularies erayo cusub oo Ingiriis ah new English vocabularies waa new English vocabularies erayo cusub oo markaas Ingiriis ah okay aasna fiirina marka erayadu waxaynu kala qaadaynaa maxaa weeye basic oo loogu talagalay ardayda markaasi basic oo loogu talagalay ardayda markaasi yarka inay isticmaalaan ee asaaska oo luqada bilow ku ah sidoo kale advanced qaybta waxaa loogu talagalay ardayda markaasi in yar yani abaar luqada soo baranayay ama levelkooda aad u fiican yahay okay aan soo socono markaa aynu soo socono number 1 so after number 1 meel qadab uu ku qoran yahay waan kasii gudbayaa number 2 baan ka bilaabayaa erey ugu horeey waxaan leenahay expect number 2 waxay noo qoran expect okay waxaa markaas expect waa erey basic ah oo aas yani haddii advanced laga dhigo wuxuu noqonayaa ama anticipate baad isticmaali kartaa yani expect waa rajayn anticipate waa rajayn labada erey waa isku mid weeye laakiin midna waa aasaas weeye midna waa advanced weeye waxaa loogu talagalay heerkiisa uu sareeya yani expect taysan bixin ka gaareen so marka waxaan leenahay number 3 waxaa noo qoran flexible yani la badbedeli karo flexible waxaan leenahay la badbedeli karo flexible okay erey ka soo horjeeda waxa weeye isagana changeable yani la badbedeli karo changeable laba erey isku mid weeye laakiin waa basic weeye midna waa advanced weeye flexible la badbedeli karo changeable na waxa weeye la badbedeli karo yani la laalaabi karo sida hadduu yahay shaygan in sida laga dhigi karo ama sida laga dhigi karo alright waan ka soconaynaa number 4 waxaa noo qoran stop yani stop waxaan leenahay joojin okay waa basic way laakiin se advanced markaa rabto inaad dhahdo joojin markaa rabto inaad isticmaasho keys baad isticmaalaysaa keys yani stop waxa weeye joojin weeye keysna waxa weeye joojin stop waa joojin keysna waa joojin number 5 display soo bandhigid display waa soo bandhigid okay exhibit maxaa weeye soo bandhigid wey ka soco number 6 patience ama patience iyo tolerance waa dulqaadasho patience iyo tolerance waa dulqaadasho ama dulqaad yani dulqaad oo noun baynu ka dhigaynaa magac baynu ka dhigaynaa number 7 gas waa qiyaasid yani gas waxa weeye qiyaasid wey gas okay sidoo kale qiyaasid markaa rabto surmise aad isticmaalaysaa qiyaasid wey isagana number 8 essential iyo crucial yani waa muhiim ah wey labada erey isku micno wey essential muhiima crucialna waxa weeye muhiima number 9 waxa weeye spell out iyo explain waa isku mid wey spell out waa sharaxid explain waxa weeye sharaxid spell out waa sharaxid
explain waxa weeye sharxid weeye spell out sharxid okay explain waxa weeye isagana sharxid aan sii soconaynaa number 10 come in soo galid yani come in yani soo galid ama soo gal yani enter yani soo galid weeye come in waa soo galid enter waxa weeye soo galid come in waa soo galid enter waxa weeye soo galid okay number 11 confirm xaqiijin okay validate waxa weeye ereyga validate waxa weeye waa xaqiijin confirm waa xaqiijin validate waxa weeye xaqiijin number 12 create yani waa abuurid weeye sidoo kale engender means waa abuurid create waa abuurid engender waxa weeye sidoo kale abuurid weeye number waxa weeye 13 observe waa indhaindhayn yani sidoo kale inspect waxa weeye indhaindhayn inspect waxa weeye indhaindhayn sidoo kale okay 13 reach means waa gaarid yani I reached my goals I reached my dreams yani waan gaaray goolkayga hadafyadayda ama riyooyinkayga reached waxa weeye ama reach yani waa gaarid yani sidoo kale waxaa la micnaa okay ama la mid ah achieve yani waa gaarid sagana achieve waa gaarid sagana okay reach waa gaarid achieve sidoo kale waa gaarid weeye okay 15 sharta waxaa noo qoran try isku day yani attempt waxa weeye isku day weeye attempt sidoo kale isku day weeye 16 meet la kulmid encounter waxaa ka soo horjeeda encounter means la kulmid encounter la kulmid okay 17 okay 27 reject diidid yani reject waa inkrid ama diidid yani okay sidoo kale maxaa weeye waxaa ka soo horjeedo decline yani waxa weeye diidid sidoo kale waxaa noo soo egaa 18 oo ah markaasi 18 improve sare u qaadid sidoo kale refine means wuxuu noqonayaa sare u qaadid buu noqonayaa 19 ignore means waa inkrid yani ignore waxa weeye ignore means waa inkrid overlook waxaa ka soo horjeeda overlook means waa inkrid sidoo kale 20 waxaa leenahay use yani isticmaalid weeye sidoo kale waxaa ka soo horjeeda use waa ka faa'iidaysi ama isticmaalid okay utilize waxaa ka soo horjeeda utilize yani okay ka faa'iidaysi ama isticmaalid qaybta ayadana halkaasaan ugu baxaynaa insha Allah waxaynu gudbaynaa qaybta ugu dambayso ee journalka maxaa u dambeeyo horta soontaasimo waxaanu gudbaynaa qaybta ugu dambayso ee journalkeena insha Allah waxa ugu dambeeyo basic to advanced sentences waxaynu soo qaadanay ereyo markaasi basic ah oo advanced laga dhigayo had erey waan ka baxaynaa jumlad markaasi basic ah oo waxaynu bedelaynaa advanced baynu ka dhigaynaa ila soco marka meeshan aad bay muhiim u tahay all right waxaa soo horeeya advanced jumlada advanced ka ee loogu talagalay ardayda levelkoodu aad u fiican yahay inay isticmaalaan qaybta basic maxaa weeye yararka loogu talagalay dabcan kuwa hadda soo barbaaraya loogu talagalay yani all right aan soo socono let us go okay number 1 hold on please hold on please means maxaa weeye wait please hold on please yani sug fadlan markaa rabto inaad dhahdo hold on please ama wait please baa leedahay hold on please iyo wait please waxa weeye sug fadlan yani ka soco number 2 catch on iyo understand waxaa loola jeedaa fahmid ayaa loola jeedaa fahmid yani okay I catch on everything about English language yani okay number 3 figure out يعني figure out waxa weeye waxa la micnaa solve yani waa xalin okay figure out waa xalin okay solve waxa weeye xalin weeye labada ereys kumid waa xalin micnahoodii figure out waa xalin solve waa xalin number 4 kick off bilaabasho start waxa weeye bilaabasho start waxa weeye bilaabasho number 5 carry
carry on means waxa weeye ku soco continue yani ku soco sii wado markaa qofka dhehayso qofka hadlayo waxa leedahay carry on pro okay ku soco wala okay ama continue aa leedahay ku soco oo sii wad yani socosho marka carry on waa socosho continue waa socosho waan sii soconay number 6 okay put up with maxaa weeye okay dulqaadasho put up with iyo tolerate yani waa udulqaadasho labada erey waxa weeye udulqaadasho labadaas erey waxa weeye udulqaadasho number 7 aan gudbaynaa oo ah it is tedious yani iyo waxa weeye waxaa ka soo horjeeda it is very boring yani aad bay u xun tahay it is tedious so su'aaladan jeclaysan hadii lagu weydiyo waxaa leedahay oh excuse me please it is tedious question yani waa su'aal aad u xun aa leedahay it is tedious means it is very boring aad bay marax u tahay aad bay u xun tahay number 8 step on it step on it means waxa weeye hurry up dhaqso yani step on it dhaqso hurry up waxa weeye dhaqso yani number 9 I have no idea means I don't know ma garanayo haddii su'aalaad garawayso waxaa leedahay I have no idea means I don't know yani ma garanayo number 10 waxay noo qoran get over here halkan imaaw get over here come in يعني ay la mid tahay jumladaasi halkan imaaw okay get over here come in halkan imaaw so number 11 quotes one okay keep it down means waxa weeye be quiet aamus yani be quiet you keep it down was mid keep it down you be quiet waxa weeye isku mid weeye okay number 11 okay let us catch up means waxa weeye let us meet aynu kulano yani let us catch up aynu kulano balan qof la galaysa soo waxa leedahay let us catch up bro tonight okay yani aan kulano caawa so let us catch up means maxaa let us meet aan kulano yani okay 13 okay waxa leenahay I am elated today means waxa weeye I am very happy today maanta aad u faraxsanahay I am elated today means waxa weeye waxa loo jeedaa I am very happy today ama I am happy today waan faraxsanahay maanta all right 14 marka gabagabaan soo gaarnay I am certain means maxaa weeye waan xaqiijinayaa amse waan hubaa yani okay I am certain waan hubaa okay means waxaa loola jeedaa I am very sure okay waan okay aad baan u xaqiijinayaa I am very sure aad baan u xaqiijinayaa ama I am certain waan xaqiijinayaa aad baan u xaqiijinayaa ugu dambeyn soo muuqaalkeena caawa muuqaalkeena maanta waxa weeye waxa ugu dambeeya waxa weeye 15 okay jumladeeni 15 waxay noo qoran okay give me a break means leave me alone yani iga tag yani give me a break please okay give me a break means maxaa weeye leave me alone yani iga tag leave me alone so halkaas buu inoo joogayaa so waxa weeye waxaan rajaynayaa markaas insha Allah in saaxiibaashina gaarsiin sayagana uga faa'iideystaan wabillahi tawfiiq